السلام عليكم أصحابي مركل كسود وهذا كنال كينا بولشو يوتيوب أصحابي ما توحدين سو قد بين سدح جاري مركا دركتان مساعدنا أما خشان آلية بدونتان هذا مين تقصو قد بين كور موقع كان هدية كان كعصب تاي بليز سبسكرايب قريب جنبريل كرنفرو سي فيديو لو بمركل سو قليو أدون وقت الدولة قوات هذا نكسو دبو موقع كاغا gaariga koowaad waxaa lagu magacaabaa Femsen Limison gaarigan waa gaariga ugu dheer caalamka waxa uu leeyahay 26 sheeg dhererkiisana waxa uu gaarayaa 100 mitir gaarigan waxa uu qaadi karaa qoys dhan mise family dhan waxa uu leeyahay qol aad iyo aad u weyn oo xareen kara dad fara badan gaarigan waxaa soo saaray dawladda Mareykanka waana mid ka mid ah gawaarida caalamka oo la yaabka badan gaariga labaad waxaa lagu magacaabaa SBY car gaarigan runtii waa gaari cajiib ah waana la yaabaysaa gaarigan runtii wuxuu awood u leeyahay in uu dhex quusto badda gudaheeda iyadoona dadka dhib gaareenin gaarigan sidoo kale dhib gaareenin gaarigan ayaa sida la sheegay qiimihiisa ama lacagtiisa ay gaaraysaa 1.2 million pound gaarigan sida u jeedin badda ayuu ku jiraa wuuna soconayaa runtii waa cajiib gaariga saddexaad waxaa lagu magacaabaa Bill car gaarigan runtii waa gaari cajiib ah wuxuuna dhacdooyinka dunida ka galay gaariga ugu yar caalamka gaarigan sida u jeedin hal shakhsi ayaa wada looguma talgalin 2 qof 3 qof iyo wixii ka badan ee waxaa loogu talgalay shakhsi kaliya gaarigan wuxuu leeyahay 3 shaag saddexda shaagna waxaa u dhaxeeya matoorka iyo wixii gaariga loogu talgalay gaarigan sida la sheegay asxaabi marka aad ka digaysid nafad ayaa ugu digaysaa marka aad koraysid nafad ayaa ku koraysaa runtii waa cajiib midaasina sida hore idinku sheegay hal shakhsi oo kaliya ayaa wada u jeedin looguma talgalin 2 qof 3 qof iyo wixii ka badan waxaa loogu talgalay one person runtii kanin waa mid ka mid ah gaariyada ugu yaabka badan dunida asxaabi waxaan filayaa in fiidiyogan ka heshay haddii aad ka heshay please like ka ilaawin haddii aad kanaalkan ku cusub tahay subscribe garee intaan fiidiyogan wuxuu ku kulmi doono waxaan ku leeyahay bye bye It's caught in the crossfire. It's caught in the